casharka afraad hababka dulinka uu saameeyo dadka. Sidee ayaa ay dulinnadu u saameeyaan dadka? Sida aan horey usoo sheegnay, dulinku waa noole ku dul nool noole kale si uu u noolaado. Dulinnadu waxa ay galaan ku tarmaan kuna koraan xubnaha jirka sooreyaasha, taasoo sooreyaasha ku keenta xanuun. Xanuunada ay keenaan dulinnadu waxa ay saameyn iyo dhibaatooyin ku hayaan wadamada dhaca kulaylayaasha iyo kuwa kulaylayaasha ka hooseeya ee dunida. Cudurka duumada ama malaariyada waa cudurka ugu weyn ee ay dulinnadu soo gudbiyaan, waxaana keena dulin lagu magacaabo Plasmodium oo Protozoa ah. Protozoa waa noole ilma aragti ah oo hal nugley ah. Dalkeena waxaa caan ku ah xanuunada ay keenaan gooryaanada iyo xanuunada uu keeno Protozoa oo kala ah malaariyada iyo jaardiyaha biyaha. Guud ahaan, xanuunadan waxa ay aad u saameeyaan dadka ku nool dhulka ay maraan webiyada iyo meelaha biyo fadhiisadka leh oo nadaafadooda iyo fayadhowrkoodu aad u liito. Dulinnada keena ama gudbiya xanuunada waa 3 nooc oo kala ah: gooryaanada, Protozoa, dulin duleedada.